صاحب يل soo dhawaada barnaamijkeena xusuusta xidiga ayaan mar kale gudagali doonaa waa maalin kale cusub oo ciyaaryahan kale oo cusub oo maanta miiska inoo saaran oo wax badan ka sheekeyn doona dhanka ciyaaraha Soomaalida iyo waxyaabihii hore ula soo kulmay hadii aan la dhinac walbo dhinac fiican iyo dhinac kaleba isaga soo dhaweyn doona markan soo dhawow aad u mahadsantahay xasan si sharafta leh quruxda badan ay ugu soo dhaweysay goobtaada iyo page-ka ay ugu casuuntay sharaf aan la soo koobi karin ay ii tahay aadaan ugu mahadsantahay mar labaad adna mahadsantahay marka la soo dhawow waxa la isweydiinayaa maanta ciyaaryahankan dad badan waxa laga yaabaa ay ku yaqaanaan qaarkoodna laga yaabo in wajiga uu ku cusub yahay marka hore magaca ku bilaabayo oo dadka isbaraayo aadaan ugu mahadsantahay mar labaad aniga magacayga waxaa la Maxamed Xasan Nuur oo loo yaqaan Baba isku tasho ha marka magacayga waa kasaa haye Baba isku tasho waxaan uga sheekaysaa ciyaaraha iyo meesha ka soo bilowday markii taariikh ahaan oo kooban haddii aan ku hormaro taariikhdeeda koowaad aniga waxaan ka soo bilaabay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalada Marka ayaan ciyaaraha ka soo bilaabay naadiga ugu horeeyay ama kooxdii ugu horeysay waxay ahayd koox xaafadeeda ka dhisan oo lagu magacaabo FC Ruzio ayaan ka soo bilaabay heer degmaan soo ciyaaray heer gobolaan soo ciyaaray ilaa iyo goboladan kaleetana waa ku soo ciyaaray ilaa si Boosaaso kale aan ku soo ciyaaray bari garow waa ku soo ciyaaray kadibna waxaan u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee aan ku soo baxay markii dambe Horseed Boosaaso ciyaarays ani golahayaan ahay sideedaba golahayaan ahay golahaynimo ku soo baxay inkastoo labadaba aan aqaano laakiin mar kasta haddii Bortieri aan noqotid dhaxanka dheeli jiray ama garab aan ahaan jiray ma buluga aaminayo golay waay waa isku kalsoona dhaxdo ka dheeli kara aniga laakiin waxaan jeclaystay ama dooqeyga uu noqday goalkeeper inaan noqdo waan ku soo baxay ciyaaraha marka caasimadda Muqdisho imaaday kooxaha u ciyaartay heerar kala duwan nihow masanid waxaan u ciyaaray saddex naadi aan u ciyaaray kooxda kuwaad horta Horseed ahayd oo xogaa waqti fiican kula qaatay sanadka waxay ahayd 2013 dhamaadkeeda aan ku soo biiray ilaa 16 aan joogay 17 dhamaad haddana aan ka sii tagay kadib waxaan tagay kooxda lagu magacaabo FC Saxafi ayadana waxaan u ciyaaray laba season aan u ciyaaray 17 laba season aan u ciyaaray kadib 17 markaan u ciyaaray kadib cabaaraan ka maqnaaday saaxadda haddana waxaa ii baahatay naadi yar oo Seersi ah oo lagu magacaabo FC Hilaac oo hadda mar dhow macallin uu ahaa ninka lagu magacaabo macallin Amxaar kadib dawsi group kadib Seersiyeed ma lagu gudbo mala Seersi meesha ay ugu dambeysay waxaan go'aansaday macallin Bortieri inaan noqdo aan go'aansaday markii dambana oo gool hayaash marka haddaan dib ku celiyo taariikh fiicanna waa soo maray sida adiga ka dhawaajisay marka horeba taariikh fiican iyo taariikh ciyaartooyga uu leeyahay ay mid fiican oo hormaray mid fiican intaan ku hormariyo waxa waaye guulo fara badan waxaan ku soo qaatay taariikhdaas fiican Boosaasana waa ku qaatay magaalada Markana waa ku qaatay sababtoo ah shacbiyad markii aan leedahay taageero badan aan leedahay naadiga oo ku jecel yahay taageerayaasha oo xaafad ay ku jecel yihiin xaafadaada lagu dareensiinayo member ah ka tahay farxad ka weyn ma lahan mugta muhiim ah ka tahay inaad soo bayso bucket man lagu siiyo oo magaalada ugu farxad weyn ma aha taas damaashaada Allah taas dabaaldeg leeyahay tan kale laakiin farxadda waxa waaye xaafadaada mar kasto ciyaalka markaas aragtiin wayb ku aaminsan yihiin qiimaana aydoon game-ka aan la gaarin xataa waxa waaye madaxa u saaran tahay bari ciyaarta waa adkeeya waxaas jirnada kaasi ka adiga laftirkaaga moogtahay martaasna waa farxad kale ahayd murugadana waa iska jirtaa ayadan farxadan ku socnaan marka caasimadda imaaday kooxiya u soo ciyaartay Horseed iyo kooxiyo kale waxyaabihii guulaha la gaartay maxaa kamid ah Horseed waa la ciyaaray Horseed guulaha aan la gaaray guulo waa la gaaray guulo laakiin horyaal aan ku hanay iyo ma gaarin ma ahayn xilli adag ku soo aaday laakiin bana hataa kaalin labaad ku dhameysanay oo aan si fiican u dadaalnay farxad waa kala kulmay laftirkeed iyo caqabad labadaba Horseed labadaas aan kala kulmaanay ani waxaan ka helay Horseed macnaha markaa fiirisid asxaabtii aan sida ciyaari jirnay waxaa kamid ah xabad nin lagu magacaabo Sweden oo jooga hadda Abqaadir Xamar Weyna kamid ah Sanyuro Abbas Amiin Qubayo markaas yar waa wada sheekaysteen farxada qoob door lagu aalminteynay markaas Stadio Conis markaas roog la saaray maalin koobaad dekadii iyo koox kale ku dhashay maalinka labaad anaga dheelin lugta labaad anaga ahayn rooga kulanka labaad aan dheelin kulankooda waxa lagu bilaabay gaadiidka saan u maleynaa iyo dekadii heegan macquul ya dekadii heegan meelaas ma ahayd haddaa iga xasuusan tahay
ما أنا لقطة لبعض أنا قاعد لي marka nasiibkaas oo yeelnay Cabdifatax Cabdiwaxid ay ugu xaarin wakaa ilaa asagana nin aan wada sheekaysan jirnay marka tababarka lagu jiro oo isku leenta la sameeynayo waa la sheekaystana waa la isforjeena waa dareemi kartaa dadka aad macnaha isku groupka ay heedeen mararka qaar kaliya marka meel fariisatid dadkiyaa soo xasuusanaysaa marka dadkii soo xasuusatid waa fikiraysaa ha marka fikirtid dadkiyaa ku sawirmaayo historyga ama xusuusashada lagu sheegayo waa qayb kamid ah farxadda dareemisa waqtiyada soo martay qurxan ka xasuusto oo qurxan ha waagi xeebta aan ku dheeli jiray kubad buglada aan ku soo bilaabo buglada yirista hatta ana gacanteeda ku talay marada baatiga inaan jeexo xayg yaryar aan ka dhigaato la jiray waxaan dhigi jiray ciyaalka soo tur waa ka qabanaa ha laastiga ciyaar jiray marka laastig khamaar ma aqoon anaga ciyaal marka taa lacag ma heli kartaa laastig la ku yaqaan saaxiib laastigaas la golhaynimada ma ku doortay marka waxaan ku doortay golhaynimada مرة أنا درت منه برتو أنا لاستيقظ عيالك ليلة ما رتي شرط عمو وكك خبناي أو كك خبناي وكصبح بقولك بخلان كرخي واحد على مركب كوحي كديلة هي اسبلنستنا حابت كل ليلة هي العقيد ليلة يعني مركب عيالك حافظ أسكا يعني غير الشلامة أسكا لوس أنا أسكعون الشلامة أنا قلا وعثر مش خيو مركب أنتوا أيوك اللي أنا بورتير نوجا ورسكو كده قال مركب العالم سينها كورة صدقكم كورة كلا صدقكم أنا وحنا لا صدق كون عيارت قدام بدي واي هذه اللي بدي وحنا لا مالا لكن أنا وحنا حوق سارة سوق أنا بس رجور دي كنا ما تنوع بس يفرح هذا بلدي صوبته مركز واسكو كرسونة إنه جرا هاي أو هدي نعلبو بودا نعكسوا بودي كرو مركز ساسا أنا مارت بورتيري نوع سائر يعني عقبتها فيرين دونا كوحر سيدو كله waxyaabo waxa jiri karo sida sheegtay farxad oo soo aragtay حبي عقباتها كو نقدو حكيمد نيهو كوخدا kubada cagta horseed xiligaas ayaa hogaaminay xiligaas waxa hogaaminay nin lagu magacaabo Cabdi John oo macallin ii ahaa nabar yar oo xanuun badan iga soo gaaray xiliyadaas nabarkaas ma jeclaan maanta inaan ka sheekeeyo laakiin danta ayaa keentay inaan laakiin banaanka aan keeno sababtoo ah ninka ragga hal mid waa qaadan karaa ninka ragga waa qaadan karaa in la dhaho warniyahow kaalay waa ku handadeena xoogaan waxaan kaaga qaadanaynaa inta ka bax haddii la qofku uu kaa tagaa laakiin qof wuxuusan ahaan lagu tilmaamo caadi khaato laga dhigo munaafiq laga dhigo oo meeshuu ka shaqaynaya mushaharkiisii oo meesha ka qaadanayay oo laga ganaaxo laga garaafeeyo waa dareemi kartaa falcelintiisii iyo gudaha waxa ugu laabanaya reflectionka Cabdi John ayuuna ahaa macalinkaas sember sida caadiga aan way dhacdaa macalin kasto ciyaartooy isqabtaan caalamka tusaale ahaan waaya laakiin macalinkan kuwaas kale waxay u duwan yihiin ciyaartooy walba ay isqabteen ciyaartooy kaliya ma ahan Cabdi John wuxuu u tilmaamay in Laaluush qaataa kulan jiray oo kulankii aan leeleynay Jeenyo iyo anaga horsadii Jeenyo leeleysay kulankaas wuxuu ku dhamaaday 4-2 فيديو ودوية ويا ويلي مرخات من دونتا واي أفر لو كنا مع هذا كلن كاس جيم كيان قل خلانية جيم برشرة يقول عاي دفاعية ديو هاف كلا سومر رايو ومرة قار نفط كسر دماتي يعني وقف له جوه إيمان كر لا وقف وابلا يقول ما يقول ما هذا ما يمنع إلى ما هذا بنوني ما يمنع إلى ما هذا ووقع تقلب تركيز وإلى ما هذا 50-50 أنقلي وايس كلا جيدي بنوني قرب كانوا يقدعي ليدايو يلينجو labadaas midku yahan xasuusanin midaa ku taabta marka oo dhameystiray maxaa dareemi kartaa marka fiiri qofka markuu saas dhan u dadaalayo ciyaarta markay dhamaato awaalkiisa hadii laga dhigo kulankaas waa noo talgashay Laaluusha qaadatay marka waxaa is weydiiyey yaa Laaluush ku siinaya horta kooxaha mushaar ma dhiibeynin jeeyada uu sheegayo ayaga waxay siinayaan jeeyada ma dhiibeynin ciyaalka xaafadaatiin walaalayaal bari kamaan la wax noqon doontiin ayaga iswado iswaani saal ugu dheelay macnaha ayaga iswado marka dad saas ku socday Laaluush ma dhiibi karaan maxaa kala ku soo haray dabagalaan sameeyey Cabdi John waxaana macallimu maxaa ku kalifaa aniga inaad iraado caadi qaata tahay caadi ma ku dhaamis dad kala ka maqashay teamka caadi gudiga uu sheegay asaga wuxuu soo gudbinaa macalinka Sember wuxuu soo gudbinaa ciyaartooyga oo dhaqan xumay iyo waxaas uu soo gudbinaa anshax soo gudbinaa gudiga markuu soo gudbiyo gudiga way qaadayaan xiriirkay geenayaan hebel waa ganaxnay dhaayaan marka
markaas xataa weli waxaa xogay iyo maaragtay gudoomiye ku-xigeen waxaas ahaayeen nin la dhaho cabdi biliya carawey way joogaan ilaa hadda horteed cali xasanaa guddoomiye ka ahay markaas waa la yaqaana asagana cali xasan arrinta u gudbiyey ninkaas wuxuu dhahay laaluushuu qaatay ha laga gudbiyo ruuxana walaalayaalow hal yaan leegu fududaanin hala baaro arrintan aniga baaritaana ogolaha ana diyaaran u ahay wallaahi oo bilahi watallaah xataa waxaan dhahay hormuud hanala geeyo haddiiba aniga aan laaluush qaatay hormuud hanala geeyo lambarkii ii tuur soo saar caadi aan u wacad joonka maclim waxaan dhahay arrintaa ha iga fududaanin waa igu kaarsabax marka waxa waaye meeluu afka aadiyo waaye sababto 4 iyo 2 anagana waa fiicnaan ciyaartooydeyna dhan qarnaa laga wada wacay nasiib uma yeelan qaarkoodna way bixeen qubaay iyo cabaas amiin qaran bixeen dad badanaa laga watay hallen aab oo qaran laga wada waxaan ahayn weli wataa marka qofka inuu qaran baxa khasab maahan laakiin waa uu wacay